Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Akhyaarta sharafta badan ee nagu xiran kusoo dhawaada caawa Qaadir College iyo cashar kale oo aad iyo aad u xiiso badan. Casharkeen hadduu ilaahay idmo caawa wuxuu ku saabsanaan doonaa hadal ama khudbad yar oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay barashada luqadda Ingiriisiga ama luqadda doontid. Muhiimadda ay leeyihiin ama ay leedahay barashada luqadaha kala duwan ee caalamiga ah iyo waxa ay kaa saacidi karto barashada luqaddaas. Haddaba waxay ku bilaabanaysaa caawa khudbaddeena learning English barashada Ingiriiska is very important aad ayay muhiim u tahay because sababtoo ah it waa Ingiriiska lagu ay ku laabanaysaa. It is waxay tahay a global language luqad caalami ah. Global waa caalami. It helps waxay saacidaysaa us annaga naga saacidaysaa. It helps us annaga waxay naga saacidaysaa communicate inaan ku hadalno ama aan kula xiriirno with people dadka from different countries wadama kala duwan kasoo jeedaan. Waxay kaloo naga caawisaa find inaan helno better jobs shaqooyin fiican and access inaan la xiriirno ama aan helno more knowledge cilmi fara badan. Englishka ama luqadda Ingiriiska is used waxaa loo isticmaalaa ama laga isticmaalaa in business ganacsiga ayaa lagu isticmaalaa, education waxbarashada ayaa lagu isticmaalaa, and technology teknolojiyada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. By learning English inaad barato Ingiriiska ama barashada Ingiriiska we open waxay noo furaysaa ama waxaan furanaynaa doors albaabo to new opportunities fursado cusub ayaa albaabahooda ay noo furaysaa and a brighter future iyo mustaqbal iftiin badan. Let us work hard aad aan u dadaalno to improve si aan kor ugu qaadno ama aan u horumarino our English skills xirfadaheena luqadda Ingiriiska. Skills waa xirfad. Let's work hard aan ku dadaalno to improve si aan u horumarino ama sare aan u qaadno our English skills xirfadeena luqadda Ingiriisiga ama luqadda doontid. Barashada luqadaha aad iyo aad ayay muhiim u yihiin. Halkanna waa iyadoo af Soomaali marka akhrista